نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتألف خيرا وسخاء نتوهج خلقا نبويا نتعاون من أجل حياة عامرة خيرا ورقيا. وبرنامجكيني liibaanta guurka maanta waxaan u fadhinaa inaan doorano lamaane wanaagsan gabar wanaagsan iyo wiil wanaagsan marka sheekhana su'aashu waxay tahay sidee ayaan ku doortaa lamaane wanaagsan lamaanaha wanaagsan qaabka loo dooranayo waxay u muuqanaysaa kulli qof kastoo diinta yaqaana waa arrin uu nabi maxamed noo sheegay sallallahu alayhi wasallam alxamdulillah kitaabka quraanka ilaahay waxa kaga matagin wax walba noo sheegay tunkaxu lmar'atu liarbac haweenka marka laga hadlayo afar baa loo guursadaa waxaa loo guursadaa maal inay leedahay rag baa ku doorta oo maalka un ka hela rag baa waxay ku guursadaan quruxda rag baa quruxda ka hela qaar baa waxay ku guursadaan qoyska wanaagsan qaar baa waxay ku guursadaan diinta afarta arrimood buu nabigu noo sheegay waana xadiis saxiixa weeye talabatul cilmiga dhanna way yaqaanaan laakiin nabigu marka u dambeeyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu farta ku fiiqay midda diinta leh limaada لأن دينتو أيضا حقوق ضد كلا بريس أيضا حقها كسينيس دينتو أيضا قبل حق هذا سينيس دينتو أيضا حق دينتو أيضا بريس حقوق ذا صدقة حقوق ذا صدقة حقوق ذا مرتدى حقوق ذا لبض قف كذا حيس حق الله هي حق رسولك صلى الله عليه وسلم هي حق ومدورا تاس ويمد لبدين اسكو حريسة الله إني عابده هذا حقها كسيس وكسيدهم كدورتها سيدهم كوجادا أنا قبل إن الدين لا haddaan rabaa inaan doorto marka inay diinteedu dhammaystiran tahay gabar diin leh taqaana ku camal falay sideen baan ku ogaan karaa way diintu waa muhiim qofka markuu baadiyaha markii la joogo wala sahmiyaa xooluhu meesha daaqayaan iyo reerka meesha la dejinayo wax sahlan la yiraahdo la sameeyaa sahanka guurka wax leeyahay inaan sameeysaa shaxambeli waa gabar le mesela salahan oo kale waad ku maqashay waad ogaanaysaa Soomaha kadib waad ogaanaysaa gabadhii akhlaaqda qoys wanaagsan qof diin leh reer magaaladan hadda aan joogno kale mesela yaa wala yaqaana marka sahanka iyo weydiintu waa furaha koobaad ee ku siinaya qofkana doonayso inuu diin leeyahay naam inuu diin leeyahay inuu akhlaaq leeyahay si fiican sheekhna maamaha waxaad arkaysaa qof gabar Itoobiya joogta asigoo jooga America guusanaya oo kale marka qofka markuu lamaano uu rabo inuu doorto maxaa wanaagsan ma inay isku dal ay joogaan mise kala dal sidoo ku doortaa arintaas qofka aniga waxay la tahay qofka duntiisi iyo wanaagiisa diintiisa iyo akhlaaqdiisa ayaa wanaagsan qofka markuu qaali yahay meeshaad rabto meeshuu joogo waad u dooran kartaa ninna kuma fakareen mesela hadda North Pole-ka adduunka iyo Denmark inaan joogi doono annaga oo ka nimid bariga Afrika marka masaafadu muhiim ma aha qofka hadii mesela qof wanaagsan meel lagu sheego meeshaad rabtaad u dooran kartaa laakiin ujeedadu waxa weeye hadhow markii la isguursado intaan la isguursanin in laga wada hadlo meesha lagu noolaan doono iyo sida la isugu imaan doono in marka xagga qalbiga iyo xagga caatifada bas la fiiriyo waa isjecelahay waa israbnaa ma sha Allah waad qanacsan mahe in lagu daro seen isku arki doona arrimahaas in la isla daraasay la isla fahmo waa laga maarmaan ku dari karaa in tajrubada iyo nolosha hadda ka jirta wadamada markaan fiirino runtii dadku markay kala fogaadaan akhiiran ilaa dad yar mooyeen way kala tagaan asbaabaha keenayna waa duruufta maadiga ah waa kala fogaanshada maanta adduunku aad u kala fog yahay waa adduunka dhaqaalihiisu aad u adkaaday run ahaantii dad fara badan baanu aragnay oo intay isaa isku guursadeen kala tagay walidaalika tala ahaan sheekhu uu waafaqayo tala ahaan waxaan aad u soo jeedinaynaa qofka doonaya inuu meel joogo meel ka guursado waxa fiican lahayd inuu qof u dhow oo duruufta ay u suurtagelayso inuu guursado inta wada daruuri ijtimaaci ahaanna wayba muhiimba oo markii matala la yiraahdo gabdhihii meeshan joogayna wiilal Afrika ha u doonteen wiilasha meeshan joogayna gabdho Afrika ha u doonteen ayada laftooda waa dhibaato yani dadkii meeshan joogay dadkii dariska ahaa mujtamacan iyaga ayaa xaq isu leh iyaga ayaa inay maaragtay is asturaan iyaga ayaa inay is doortaan la doonaya marka dadka inta isu dhow inay is doortaan way laakiin hadda ma jirto waxaan dhihi karno يعني ما بنانا يعني إنه قف هالك عشاق الجنات العليا ودعاة الرحمة
للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتألف خيرا وسخاء نتوهج خلقا نبويا نتعاون من أجل حياة عامرة خيرا. horta dee koob biya meeshaad ka cabayso koob shaah meeshaad ka cabayso iyo meeshaad gabar aad maalin kala sheekaysanayso looxul maxfuudka ugu qoran tahay waxaan sheegnay maxamuud waqti khilaaf kama taagno waxaan sheegnay yani sida yani qaalibka ama habboon inay tahay dadka intii isku meel joogta inay nolol wadaagaan sax waa qaalib nolol wadaagaan laakiin ninka dee calafka lama celin karo caraf la macna xitaa qofka gabadh ka fog hadduu guursado yani ma ogaa ka gabadhaas in sabiqa la soo diraa markan video aka qofkaas xitaa ma ogaa ka gabadhaas in sidaas xaqiiq ahaan yani wallahi waran ما Soomaali xataa laba kala maqan kala taas waa saxiix taas waa anigu hadda fiiri islaantayda weligay ma arkin markaan guursaday islaante labadaba ma arkin kunta sawirkoodana ma arkin waagas Facebook ma jiro malaha may wuu jira reerbaadinimada ku weynaydo marka waxaas waxa reerbaadinimada baa wayna asal waxay inuu arko aarta ku jiido niyo wada xasan joogtay official hadee ma ahayn markii aan isdooranay annagu aan warqado isu qorqornay wasaa isku dooranay markiiba anigu waan tahriib baan soo tahriib baad arkina muuqaalkeeda wada muuqaalkeeda waan wajiga ku jiidiya mayna dee anna kuma dhiiranin hadee dhibka ku haystaa gabadha waxaa wey gabadha iyada oo ii sheeg oo meesha joogta anoo gurub igu jirinba meelahaasna uusan foofka nagaba uusan gaarinba tahriib baa labada geesna inama acmaalu binniyaat bay unii sheeg qabdhaha waad garanayso waxay ugu dheheen gabadh adu nin wanaagsan macalin nin wanaagsan baa tahay gabadhaana nin wanaagsan gabadha iyo ku dhaafin waan iska dhaga tiray muddaan iska dhaga tiray ninkii markii dambe hadee way igu celiyeen maya gabadh fiican wey waa sida marka waan iska guddoomay asaas maya ilaahay lacanta meesha aan ku geeyay taando ma khaajan ka الله وحوير وإذا أنا أقول يا ثم برسلان كور مركز وكبير كيف لا يجوز جنات العليا ودعاة الرحمة للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتألف